wafdi u warkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa lagu soo waramaya inuu maanta gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaas oo sida lagu soo waramayo si diiran loogu soo dhaweeyay waa kan wariyahayaga Ibrahim Maxamed Geedi wafdi hogaaminaya madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle ayaa soo gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle waxa socdaalkiisa ku weyliyay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya garoonka magaalada Beledweyne ayaa waxa ku soo dhaweeyay maamulka gobolka kan degmada saraakiisha ciidamada dawladda iyo kuwa AMISOM iyo qaybaha bulshada kala duwan ee gobolkan xubnaha ka mid ah maamulka gobolka oo ka mid yahay gudoomiyaha gobolkan Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar ayaa soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble waxaana ay sheegeen in si aad ugu faraxsan yihiin inay soo dhaweeyaan wafdiga madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ugu dambeyntii waxa ka hadlay madaxweynaha cusub ee maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble isagoo sheegay inuu si aad ugu faraxsan yahay inuu yimaado magaalada Beledweyne maanta idin soo gaaro idin soo booqdo xaqiiqdii beledku waa beledkaygi dadkuna waa dadkaygi anigu weligay shaki kama aanan qabin inta kalsooni ayay gelinaysaa farxad ayay gelinaysaa soo dhaweyntiina intaan ismoogayna dagaal baan ku maqnayn xumaan idinkaga maqnayn dagaal baan ku maqnayn dadaal baan ku maqnayn dhaqan cusub iyo nidaam cusub oo Soomaaliya laga hirgeliyay ayaan aaminsanayn bal qaabkee ugu fiican oo aan arintaas ula talaab qaadi karnaa Soomaaliya idilna maanta meel aan nidaamkii federaalka ahayn qaabilsanayn aan waafaqsanayn ma jirto ballan baxyadiini badlaana waxay keeneen wareer Hiiraano madaxweynuhu waa kaasay la laaf marka saas daraaddeed hawsha intaan xaga ka wadnay adiguna intaad ka wadeen meelna waa isula socotay hawshaas horta taa ku bishaaraysta